الله الرحمن الرحيم داوديال كلنتي وعنا وناكسن ميل كستوات joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkan oo la magac baxay kun su'aalood iyo su'aal dabcan oo fanaaniinta su'aalo lagu yar weydiinay halkan ku suganay waa hoolka Scandinavian-ka dabcan barnaamijku waxa inoogu martiya Nadira Nayrus Nadira Maxamed Cige kun kugu soo dhaweeyaa waan ku dhawahay walaashi Fihima sida diigu soo casuuntay barnaamijkan quruxda badan waxaan jecelahay horta intaynu heesaheena iyo hawlahaas u galin waa su'aalo kooban وسؤال عادي قلت له ده كل شيء جميل لكن وحاسة مدة 15 دقيقة إن السؤال هاسي ذيك جوابته أنت دونان بحالي قادان سؤال شو جوه الرئيسين شعلينا كويدي وحوية نظيرة فنان دابا متى لقى يابا إن أنا هاي وحلا رفان كي الصحافة دوي يسكدويهن ما تهينت متعش إن صار برامج نقط وان شعلها برامج كده شعلها لدينا صار فانكي سوغانتون ما يسكت ضيدين مركا صار طب مولي ما هوش هذا ما قش ما نقولي لك وانقليه نظيرة أنت لك بتكون كرسونتها النفط هذا إن بدن dadku haday ku raadaan wad fool xunta maxad sameeyay midabkaaga bedeshaam sadarkaaga midna ma bedelo tayadu ma wata talaabo maxay qaadaa inaan ku sii socdo oo marnaba gadaal soo eegin horta Nadira maxaasba maya ma jeceshay family-gaaga inaad baraha Facebook oo isticmaasho ama social media waan jeclahay Nadira waxaad fanaanad baa tahay dadku taageeriyo iyo kuwaan ku taageeri ba jira kuwa aan ku taageeri markay ku caayaan maxad sameeysaa dhiirigelin u banacayadooda ka qaadaa Nadira waxaad haysataa wali midabkaaga originalka Ilaahay ku sameeyay walow ay dadku jiraan inay midabkooda inta badan bedelaan maxaa sabab ah inaad midabkaaga bedeli weydo wallaahi dhaliilo badan way iga yimaadaan midabkayga laakiin aad baan u jeclahay mana bedeli doono dadku wali taliina midabkaaga bedesho wali ma la kulan way badan yihiin waliba jawaabtooda maxaad ka dhigtay markaa jawaabtooda waxaan ka dhigay maya Nadira bulshadu waxay kugu xamataa maadaama ay su'aalayihiin inay Nadira qalqaali tahay maxaa ka jira arintaas qofkii garanayo ba garanaya kulay sidaan u dhaqmo bulshadu waxay kugu xamataa Nadira waa qof qalbi wanaagsan oo aad u kaftan badan ma isku ogtahay adigu mise waa xan dad kugu dhaaraan isku ogahay inaan qalbi wanaagsan oo kaftan badanahay waa tahay Nadira dadna waxaad ka ciyaar duwan tahay fanaaniin badan marka aad heesahaaga ku ciyaarayso sidii ay saameyn ugu yeeshaan ciyaartaas heesahaaga والله هو ميدان قروي واحد دتك ساس يقصي في رصدنا فنانت وانا إسقابية وانا عياران واحد دونان بيسميان لكن واحد يقصوا عام بنقروي واتاي دتك مركا هي ساعة داودان محي كورة ما عيارتي سكديسو ما يصدان يشو لكن دو حسلو متشوتي مرول بهرتاد مالا فيريا مالكو لانتا نادير دad ku dhaahdo ciyaartaadu waa dhaqan xumo dhaqanka Soomaalida way ka baxsan tahay waxyaabo aflagaada noocaas waan la kulmaa laakiin mu joojiyo wakaas Nadira muddo kooban fanka ku jirtay muddada kooban fanka ku jirtay waxaad hantiday magac ayna fanaaniin badan hantiino aado ma la oran karaa ciyaarta Nadira ka qayb qaadatay in ay fanka magaca inta leeg hantido wallahi ma u maleynayo laakiin waa iska baxay magac baan dhigi karaa maalmo dhawid waxaan arkaynaa hambaliyo Facebook taala imikana waxaad igu tirilay ma qabo maxaa taasi walaalay horta dhibaatada jirta waxay tahay markaad social media qof ku jira tahay midna ka soo qada ama qof familkaaga ama saaxiibkaaga kala sawir la soo galaysa waad soo dhigaysaa dan uu qabaabay iska suulanteeda kala dadkan hadda YouTube wada leeyihiin si qaldan bay magacaaga u isticmaalayaan waa la guursaday wax saasa ani hadda leeyma qabo xaasmihi laakiin insha Allah waan guursanay mar dhow muddo inta leeg baad rabtaa Nadira inaad fanka ku jirto ilaa muddo inta leeg 10 sano 10 sano wallahi fanka inaan ku sii jiro horta ma rabo waxaan Ilaahay mar walba ka baryaa inuu Ilaahay fankayga soo madoobeeyo waana rajaynayaa inuu Ilaahay ducadeeda si aqbalo insha Allah ma jeclid markaa fanka ma taasa jawaabteeda ma jecli fanka inaan ku sii jiro marka fanka soo galisay maxaa ku dhiirigeliyay fanka markaan soo galay waxa igu dhiirigeliyay baan ku dhihi karaa jacaylan jeclaa ama dhalinyaranimo markaas aan hobbigayga ahaa iyo fan oo aan ka soo jeedo familygayga kulli fanaaniin ahaayeen abwaaniin ahaayeen hobbigii iyo waxaas ku galay ka soo jeedidaan fanka ka soo jeeday laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah waqti dhow aan waliba fogeyn inaan ka farxasho ma la oran karaa Nadira markay guursan rabtay fanka ka fadhiisanaysa dabcan waa la dhihi karaa okay Nadira ma ku dumarku marsadaan waxa la oran karaa way isku qurxiyaan mise waa khiyaano wallahi waa khiyaano waa khiyaano maadaama say khiyaanada ogtahay maxaa marsad anigu daawo ma marsado daawadeed waa make up markaan meel soo aadayo ama sidoo kale waraysigan oo kale adiga qabanaysid ama video oo kale aan duubanayo waan isku soo yar nuuriyaa oo maadaama aan daawo marsan boorka qaad baa la yiraahdaa Nadira horta shaqo aan hayn tan fanka ma haysan
may waqtiyada aad leedahay aroosyaamaha ul ee xanaaqda maxaad samaysaa shaqadeeduna ku taaganta aan leeyahay macni aan aroos ka soo yeesay kale tumaysid aad xanaaqsan tahay maxaad samaysaa wallahi horta fiime hadan hal mid ku sheego anoo xanaaqay waan isbaay walaa afkaas basas iigu kala go'an waligaa ma xanaaqay wallahi ma xanaaqo waxaan ahay dadka aadka u samirka badan aadka u dulqaadka badan yani ayagoo xataa wax lagu sameynayo ayagoo waxay doonaan la kulmaya yani ka sii socdaan hoon danayninba hortooda sii eega wallahi hadaan ku raahdo waan xanaaqa dambi baan iska sheegay nafteeda ahaan aniga nadiir ahaan maba xanaaqaba waligaa ma xanaaqay noloshaada ka soo xataa maalin xanaaqday wallahi maalin aan soo noolaayo dhig waan xanaaqay wallahi ma xasuusto hadaan qofka ma aragtay aan macnuu waan ka badbadiskiisa arko walaaliga joojin baan idhaahdaa qaladkaaga ma xanaaqo ma jiraan asxaab si gaar ah ugu kalsoon tahay oo aad jeceshahay inaad halkan ka sheegto way jiraan sida saaxiibteeda aniga ii khaaska Shaadi Sharaf fanaanad aan salaamayo maalin dhaweydna u mushay aan leeyahay ayadii xaajigeeda iyo wiilkeeda waan salaamayaa sidoo kale asagana waxaa jira wiil yiraahdo Yaxye Xidig oo asagana ku nool wadanka Germany oo macnihii saaxiibada igu dhow oo badanaa markaan qosalka u baahdo oo kale aan la kaftamo ama aan la farxo waa kanadi loo guursan rabtaa صح ninkaaga guursanaysa maxaad ku dooran wallahi dabeecadiisa on kulay waka maxay minka qorshayaad haysataa ee ku diyaarsaneed leedahay qabo maadaama hamigaaga yahay inaad fanka ka fadhiisato wallahi qorshaha ii diyaarsan wuxuu yahay inaan masaajidada galo jilbaab weyn xidho wax kale ima qorshaysana ilaa waqtiyada inta leega soo socda wallahi dhawaan insha Allah inaan ka farxashan rajeynaya ilaahayna hay suurta geliyo ilaahayna iga soo madoobiyo ma jiraa qof si gaar ah ugu faanto adiga ku calaamad wuu jiraa horta koow waa wiilkayga marka ugu horeysa waa calaamadayda marka labaadna waxa weeyaan aniga de inta ii dhow kulay fanaaniinta qof aad ka taageerto jeceshahay ma jiraa heesiisa ma fankiisa ama dhaqankiisa wax doono aan taageero aan ku dhahayo qofkaas aan taageera horta fanaanin haddaan taageerayo oo dumar ah waxaan taageeraa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan hadday heeso noqoto dhaqankeeda inkastoo saas isku dhaxgelin laakiin aan asxaab nahay laakiin fankeeda aad baan u taageeraa markay fanaanimo noqoto yaad ciyaartan aad ciyaarto ma adaa si gooni u bartay mise adiga ayaa la yimid mise meelo gaar oo loo gala jira meelo gaar oo loo galo jira maan arkinay anoo isla xayun baan is arkay kulay waa kaas ma ku faraxsantahay inaad soo ciyaartay aad baan ugu faraxsan wili waan ku qancaa waa kaas wixii ka xumaanay ka xumaado wixii ka naxay ka naxo mana bedelayo saasaad kaga ciyaartay saasaan ciyaar inta ka fadhiisanaysaa fanka ilaa inta ka fadhiisanay fanka insha Allah ugu dambeyntii maxaa leedahay marka daawadayaasha aad baan u salaamayaa horto dhamaantood sida home cable oo kale aad baan u salaamayaa wiilashana duubay hadda kaamirada quruxda badan naga duubay adigoo fahima walaashiyan jeclahay aad tahay adna aad baan ku salaamayaa waxaan si khaas ah u salaamayaa Cabdiaskar Tube oo ah marna saaxiibkayga marna channelkayga u salaamaya asagana waxaan kaloo salaamayaa aniga qof ii khaas ah oo leeyahay Hodan salaam ku soo mariyay waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Yaxye saaxiibtay Shaadi Sharaf inta ku salaamaya